السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawareysaan. qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in la soo badbaadiyay laba duuliye oo la socotay diyaarad helicopter nooca Apache oo ku burburtay meel ku dhow marinbiyoodka Hormuz. Iiraan oo looga shakisan yahay in ay gantaal la heshay. haddaba tafaasiisha iyo wararkii ugu dambeeyay arrinkaas iyo xiisado ka soo cusboonaaday Hormuz oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. golaha wasiirada Israa'iil oo goordhow kulankoodii uu soo gabagaboobay waxay kaga hadleen oo ay arrimo muhiim ah ka soo saareen dagaalka u dhaxeeya Xisbullah iyo iyaga. afhayeenka dowladda Iiraan oo iyaduna jawaab ka bixisay arrinta ku saabsan xaaladaha taagan Iiraan oo si rasmi ah ugu jawaabtay Israa'iil marka laga hadlayo xiisada Lubnaan iyo Israa'iil u dhaxaysa. taliyaha ciidamada Lubnaan oo booqasho ku joogay maalmahan Pakistan ayaa kulan muhiim ah la qaatay maanta taliyaha ciidamada Pakistan. haddaba Pakistan iyo Lubnaan taliyayaashoodu maxay ka wada hadleen iyana barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona. haddaba qodobada barnaamijka iyagoo ay noo soo socdaan marka hore waxaynu ku bilaabaynaa diyaarad helicopter oo Mareykanku ay leeyihiin nooca dagaalka ee la yiraahdo Apache ayaa la sheegay inay ku dhacday biyaha Cumaan meel ku dhow marinbiyoodka Hormuz iyo waliba biyaha Iiraan meel ku dhow. waxaa la raadinayay saacado dhowr ah duuliyayaasha diyaaradda laba qof oo la socotay ilaa markii dambe madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in la soo badbaadiyay labadaas. diyaaradda waxay ku dhacdaa la leeyahay meel ku dhow biyaha Iiraan. biyaha Iiraan maxay idin dhaweeyay? Iiraan maalmahan waa caadi ma gantaalo waxay haysataa wixii ay aragtay ay nagta kaga saarayso. marka Mareykanku si cad uma sheegin in diyaaradooda la soo riday, laakiin waxay yiraahdeen taxqiiqan ku haynaa baaritaan sababta diyaaraddu ay u dhacday. laakiin warar kala duwan ayaa sheegaya in Iiraan markay u dhawaatay diyaaradda digniin loo diray, fariin digniin ah oo la yiri aagan ka bax. laakiin aan meesha meeraysanaya eeriyadan isaga taga oo aagan ka carara way isdhaga tireen kadibna nagta laga saaray. marka ilaa hadda Mareykankiina tafaasiil badan kama hayno, Iiraanna tafaasiil badan kama hayno, laakiin wararkaas miidiyuhu ay meelaha xanxansanayaan ayaa hadda socda. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa goordhow war soo saaray. waxay sheegeen inay badbaadiyeen laba ka mid ah shaqaalihii la socday diyaaradda Apache ee Mareykanka uu leeyahay. taliska dhexe ciidamada Mareykanku waxay sheegeen labada qof in la soo badbaadiyay kadib markii diyaaradda Mareykanka ay ku dhacday meel ku dhow xeebaha Cumaan xilli la sheegay diyaaradda inay ku guda jirtay socdaal ronda sameynaysa ilaalayn wax la yiraahdo ayay meesha ka sameynayeen. marka ilaalayntii ayaa markaa waxaa la sheegay in halkaa lagu qararamsaday oo lagu cunay. waaye marka sheekadaasu marka halkaas ayay maraysaa. warbixinada kale ee soo kordhay ee saakay barnaamijka aynu ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah golaha wasiirada ee kooban ee Israa'iil ayaa mar kale waxay yeesheen kulan ay yeesheen. waxay ka arisanayaan arrinta Lubnaan. Israa'iil iyo Iiraan Lubnaan isku hayaan. Lubnaan waa saaxada macrakada Iiraan iyo Israa'iil. Israa'iil waxay rabtaa inay Xisbullah iyo Beirut iyo dhulkan iyo ay qaadato oo ay nagta ka saarto. Iiraan waxay leedahay car u dhaqaaq halkaas. tallaabo qaad. marka nimankii marka shirkoodii wixii ka soo baxan idin la socodsiinaya. golaha wasiirada ee kooban ee Israa'iiliyiinta ayaa waxaa la sheegay inay sheegeen war ay soo saareen
gantaal kasta oo ka soo dhaca dhanka lubnaan ee israa'iil lagu soo weeraro in beddelkiisa ciidanka israa'iil ay weerar ku qaadi doonaan magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan. haddaba telefishinka la yidhaahdo kanaalka 14 ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu sheegay in golaha wasiiradu ay go'aankaas qaateen gantaal kasta oo lubnaan laga soo rido oo israa'iil ku soo dhaca beddelkiisa inay iyaguna ay duqayn doonaan magaalada bayruud ee caasimadda lubnaan. ujeedaa nimankanu bayruud ma aadi kartaan. maraykankaa yidhi cid kastaa tiri iiraanaa tiri waa khad axmar, waa layn cas bayruud haddaa isku weerartaan. way diideenoo waa tii dagaalkii maalin hore uu sababay bayruud weerarkeed. nimankaa marka bayruudaa laga celin lahay. hadda waxay raadinayaan marmarsiiyo, waxay leeyihiin gantaal kasta oo xisbullaahi ay nagu soo riddo oo gudaha israa'iil ku soo dhaca waxaynu kaga jawaabaynaa weerar aynu ku qaadno bayruud. marka xisbullah iyagu way weerarayaan, gantaalay ku tuurayaan, way garaacayaan. laakiin xisbullah gantaaladeedu hadday lubnaan ka soo gudbaan oo iiraan baalka israa'iil gudaheeda ku soo dhacaan annaga bayruudaa ku jawaabeynaa. gardaradaas ma aragteen? waa yaab waay. marka waxaa arkaa marka dowladdii lubnaanna waxay ku riixaysaa xisbullaahida iyo waxa kan fawdada iyo dagaalka meesha ka socda iiraana nagu waday leeyihiin. waa dhibo kaloo imtixaana iyagana. iiraana qoorta loogu jirtay leeyihiin, iiraana faragelin nagu haysa, iiraana dalkeennii kala qaybinaysa, qayb xisbullaahi dagaal ay ku jirtaa, iiraana dagaalka nagu wada, annaga hataa reer lubnaannahay dagaal ma rabno, nabadaan rabnaa. maxaa nabad? israa'iil waaba caddaysa, waxay tiri waxaan raadinayno waxay tahay israa'iil al-kubra ama israa'iisha weyn oo dhowr dal oo caraba la qaadanayo. marka maxay tahay meesha? haddaba markaan tuso iiraan iyaduna waray soo saartay arrinkaa ku saabsan. haddaba waxaa la sheegay afhayeenka dowladda iiraan ayaa sheegay in iiraan iyo lubnaan aanay wakiilo isku ahayn oo midba midka kale aanu kan kale wakiil ka ahayn. afhayeenka dowladda iiraan wuxuu yidhi wadooyinka diblomaasiyadda iyo isticmaalka awoodaha difaaca ayaa loo adeegsan doonaa si loo sugo xuquuqda dadkeena. iiraan iyo lubnaan wakiilo iskuma aha. haddaba waxa uu yidhi iiraan iyo lubnaan waxay leeyihiin oo keliya hal cadow oo isku mid ah oo doonaya inuu burburiyo lubnaan oo uu kala qaybiyo islamarkaana daciifiyo iiraan. ma ujeedaa? ninkan hadal muhiim oo afhayeenka dowladdu marka ku hadlaya wuxuu leeyahay lubnaan iyo iiraan, macnaha xisbullah laga wadaa, iyo iiraan midna kan kale wakiil uma ah. annaga wakiil kama dhiganin xisbullah in danta iiraan uu u dagaalamo macnaha, laakiin hal hadafaa naga dhexeeyo ah hal cadowaan leenahay. cadowgaasoo raba inuu dadkan dhibaateeyo iiraan iyo lubnaan labadaba. hadafkaasaa marka ka wada shaqaynaynaa annaga iyo xisbullah. marka dowladda lubnaan meesha qarracda ay ku hayso wax ka jira male. annagana wakiil nooma aha nimankan xisbullah. xisbullah dantooda cadowgooda iyo dhulkooda inay difaacdaanay rabaan, annaguna saasaan rabnaa. laakiin mabda'a naga dhexeeya muxuu yahay? hal cadow waan leenaha, marka waa inaan iskaashanaa. laakiin annaga wakiil nooma aha, kuma shaqaysano. dowladdan afkeeda ha cayshatay leeyihin. marka sheekadu marka halkaasay xaajadu maraysaa la leeyahay. marka warkaasu halkaasuu joogaa. waayahay qodobada kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno iyana waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada dalka lubnaan ayaa wuxuu tegay bakistan. maalin hore idiin sheegay sabtidiyuu tegay. axad iyo isniin iyo talaado, saddexdaas maalmood howlo kale ku jiray taliyihii uu la kulmi lahaa. taliyihii marka maanta arkay taliyihii ciidanka bakistan. waxaa lagu soo koobay nuxurka wadahadalkooda in iskaashi buuxa uu dhex maro ciidanka lubnaan iyo ciidanka bakistan. markii hore ujeedada uu meesha u tagay laba arrinaa lagu sheegay. arrinka koowaad inay wax huba iyo waxyaabo nidaamsan ay kasoo helaan bakistan, maadaama bakistan ay dowlad weyn oo nuclear haysato tahay, markaa inay xoogaa soo helaan.
midda labaad inay iiraan ku qanciyaan bakistaan hadday yihiin maadaama dhexdhexaadayaashii ay yihiin inay arrintan xisbullahi ay isaga baxaan fiiri lubnaaniyiintan iyagaa wareersanba xisbullahi waxay iska difaacaysaa israa'iil iyaguna way dacweynayaan mana iska celin karaan maalin hore askartiisa ninkan taliyaha ah ayaa iyagoo meel iska fafadhiya israa'iil duqays markaasay afka ma iska celin karaan hub fiican ma haystaan xataa maraykanka uma ogola inay hub fiican qaataan waxaa leeyahay israa'iil a khatar ku tihin laakiin nimanka xisbullahi hub fiican ha qaadanin ama ma ka yaqaana iiraan ay kasoo qaataan jugtay ka geliyaan daronisay soo qaataan wax walbay ku garaacayeen iyagaa dowladda ka xoog badan xisbullah marka sheeko waalana marka halkaa ka socda haddaba aan idi tuso warbixintii ugu dambeysay jirada la yidhaahdo sharqul awsad waxay leedahay taliyaha ciidamada bakistan ayaa wuxuu ay wada kulmeen dhigiisa lubnaan iyagoo isku waafaqay in iskaashiga labada dhinac ee militariga aada loo xoojiyo taliyaha ciidamada bakistan ninka la yidhaahdo caasim muniir ayaa maanta talaadaha wuxuu la kulmay dhigiisa lubnaan rodolof haykel kaasoo la sheegay in uu sabtidii lasoo dhaafay booqasho ay uga bilaabatay bakistan waxay isku waafaqeen in la xoojiyo iskaashiga militariga ee u dhaxeeya dhinacyada bakistan iyo lubnaan dhanka kale waxay ka wada hadleen waanwaanta bakistan ay ka dhex wado maraykanka iyo iiraan way marka sheekadu marka halkaasay iyaduna joogtaa wararkaas ayaa marka ugu waaweynaa haddaba qaybtan barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa war ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka iiraan haddaba ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay warbixin ka bixiyeen isu socodka maraakiibta ee maranbiyoodka hormus waxay sheegeen in ay sidii loogu talagalay ay u socdaan isu socodka maraakiibta ciddii waxay yidhahdeen laakiin waafaqsan qawaacidda iiraan ay dhigatay iiraan waxa ay ogoshahay haddii aada meel saarto waa gudbaysaa lacagtii waa dee lacagtan imtixaan maraykan waa yaabay 2 milyan oo dollar markabkii kan ugu yar 1,500,000 wixii oo dhan shuruudahaas haddaa marto cid ku haysata male waa gudbaysaa maba xirnaba maranbiyoodka hormus laakiin isbaaraa taale isbaaradu macnaheeda gaawaari ma gudbi karta ma haddaa khidmadda bixiso waa bixinaysaa kadibna waa soconaysaa marka wuxuu leeyahay ninka u hadlay ciidanka ilaalada kacaanka goor dhaweyd maranbiyoodka hormus okay waaye dadaa waa la weydiiyey waxaa la yidhi meesha diyaaradaa lasoo riday xiisadaa jirta wax ma socon karaa waa socdaanu yidhi annaga wax naga xiran male ilaa haddana ma jiro helicopterka wax waroo maraykanku ka soo saaree sababtoo u dhacay iiraanna kama hadlin marka laga reebo qaar ka mid a warbaahinta oo qoraysa in gantaal iiraan leeyahay uu ku dhacay abaaji oo halka helicoptertii ay ku kala fadhiintay maxaa usoo dhaweynaya biyaha iiraan meeshan maa gaza-iya warniba kaaru imtixaansana haddaba marka warkii waa naga taa qaybtii labaad ee barnaamijkeena waa soo gabagabaynaynaa laagareeya oo sheergareeya barnaamijka asxaaba intaan mar kale barnaamij kale ku kulmayno haddii aan laydmo